gabadhii lagu magacaabayay Ruwayda ee muuqaalkeedu uu qabsaday guud ahaanba baraha bulshada Soomaalida buuqa badan oo ka dhexdhalay gabadhaasi oo sheegtay in shaqooyin badan oo ay ka raasatay rag ay u diideen kadib markii iyadu ay diiday inay la seexato oo ay la samayso arrimo gogol. gabadhan ayaa waxay sheegtay muuqaalka isbuucan ay siisay warbaahinta in aabaheedu geeriyooday ayna haysato caruur agoona. haddaba guud ahaanba warkaasi ay gabadhaasi siisay warbaahinta ayaa waxaa beeniyay aabaheed. haddaba aabaheed ayaa yiri waa noolahay, waxaan ahay dabaqada dhexe, waxaan ahay nin ganacsada, waxaan ku soo koriyay nolol heer sare. ma garanayo waxa ku kalifay gabadhayda beenta intaasi leeg inay siiso warbaahinta. haddaba waraysigii uu warbaahinta siiyay aabahani dhalay gabadhaasi beenta sheegtay ayaan barnaamijkana maanta aynu ku dahqaadaynaa. ha yeeshee daawada intayna barnaamijka u gudagelin, haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaada la wadaag, kusoo dhawaada barnaamijka. isbuucan ayay ahayd markii gabadh sheegatay magaca Ruwayda ay waraysi siisay warbaahinta gudaha Soomaaliya ayna ku sheegtay inay tahay agoon aabe la'aana, caruur agoonana haysata, shaqooyin ay raasatayna lagu xojeeyay gogol inay la seexato raggaasi shaqooyinka hayay. kadibna ay diiday. muuqaalkaasi oo cadho badan ka dhaliyay baraha bulshada Soomaalida ayaa guud ahaanba been noqday kadib markii gabadha aabaheed uu soo fadhiistay warbaahinta uuna sheegay inaanu dhiman, ayna tahay waxaan ay warbaahinta siisay been abuur aan sal iyo raad toona lahayn. waa noolahay, maan dhiman, gabadhayda waxaan ku soo koriyay nolol fiican, waxaan ka tirsanahay ganacsatada Soomaalida, dabaqada dhexena waanahay. aabaha dhalay gabadhan beenta ka sheegtay nolosheeda iyo nolosha qoyskeedaba ayaa sheegay inuu ka warhelay maanta aanu wax waraanu kala socon. kadib markii muuqaalkaasi la daawasiiyey ayaa aabahani oo hinis qabsaday. waxaan ahay aabaheed buu yidhi, waxaan ahay aabaheed, si wanaagsan ayaan u soo koriyey, nin dabaqada dhexe ah ayaan ahay. ma garanayo waxa ku kalifay gabadhayda baahidan ay sheeganayso. aabaha oo aad u cadhaysan ayaa sheegay waxay gabadhan yari ay ku cayaartay nolosheedii. waxay ku cayaartay buu yidhi noloshaydii oo way dishay, sharaftaydii ayay dhulka ku jiiday, anigoo nool ayay xabaashay igu rogtay. aabahana ayaa waxa uu sheegay markii uu weydiiyey gabadheeda oo yidhi maxaa kuu kalifay aabba dhibtan iyo beenta intaasi leeg, maxay tahay, maxaad ii dishay, maxaad xabaashay ii aastay anigoo nool, maxaad inooga dhigtay dad aan waxba haysan oo loo qaaraamayo. aabahan ayaa sheegtay in gabadhiisii ay ugu jawaabtay way iga tustay iyo way iga qabatay. haddaba bal waa kan ee nala yar daawo aabahan oo ka hadlaya gabadheedii aastay isagoo nool. waxaas wax dhaqankeena uu yahay ma aha, meedina wax kama tuugi naqaano, dadna wax kama tuugi naqaano, balaanka caynkaas oo tuugana ma naqaano. warbaahinta Soomaalida wehel ayay u noqonaysaa arrimo ku saabsan xuquuqul insaanka iyo ka hadalka bulsho baahiyeysan oo barta mooye beer kale aan ka qodan baraadiriga. arrintan waa dhacdo ku saabsan ka hadalka arrimaha bulshada iyo ku been sheegida awoodda Alle, balse ma ahe waa ka kaaftoon oo ka meera wixii ku soo maray. Ruwayda Yuusuf Yabarow waa shakhsiga inuu warbixintani diiradda ku saarayno iyo wax ka ogaanshaha arrimaheeda gaarka ah. ka hadalka baraha bulshada waa astaan u noqoshada wax aan laga kabsan oo bilow u ah kala taga ama hayaanka dad reer ama bulsho. Yuusuf Yabarow oo ah aabaha dhalay Ruwayda ayaa wax walba beeniyay oo bulshada u bayaaniyay cadeymo ku saabsan arrimaha qalafsan oo lagu baahiyay barkulanka bulsho ee Facebook. inta magacayga muuqayga taqaana oo inta iga arkaysa waa salaamantiin, salaantada hawadiisa bulshada meel kastoo joogtiin. waxaan rabaa inaan inta ka caddeeyo shalay qalad baa dhacay. qaladka dhacayna waxaa sameeyey gabadh anigaan dhalay ayaa sida lay sheegay, anigu waan baadaan ma fiirso ma dhegaysto. aa la yidhi shalay waxay ka hadashay meediyahani ka hadashay geedkani ka hadashay oo waxay tiri aniga haddii alla ku aabbahay baa agoon baan aabbahay baa dhintay oo haddii alla ku maayo ilmihii
uu ka tegooyo yarhaan haya iyo hooyaday baan haya waa baahanahay hana la soo gargaaro ay jiraan leeyaan waxaan u dirsadana ma aha waxaan ogayna ma aha waxaan maqlayna ma aha waxaas wax dhaqankeena uu yahay ma aha meedee wax kama tuugin naqaano dadna wax kama tuugin naqaano blanka caynkaas oo tuugana ma naqaano sida waxaas oo saas loo blangayo geedaha lagu duubayo oo adduunka loo wargeliyayo ma naqaan dadka loo baadigeeyayo leeyahay dada ma isku cadilin oo dad saas ku qofa jiiso qofa uriyana qofa saara leeyahay ma naqaan anaga shaqaas aan ma galno ma naqaano laakiin midaan meel ka keento ma naqaan shalay iyada nagu gaado dadka hadii la ku bayaan saan nagu soo muusay ma kulanteen iyada arintan markii ku soo shaabaxday ama aan qashay ka dambo wada hadal ma la sameeyay oo ma weydiiday sababta iyo waxa marka ku dhaliyay inay bulshada soo horisay waa saaka saragna maxaa kuu qabta saan ifteeda oo anigana ii dishay mutaqaana nolosha iga qaaday beenta lagu sheegay ummadana noogu ceebisay waa iga naqatay tiraamo laakiin wax ku kala fahmaan ku sheegay ma wax kala waa iga naqatay tiraamo kuma ekeen oo waa dhaliyadii reer Yabarow iyo digniino ku saabsan beegsiga duruufaha jira iyo ka gaashaamida dulqaad tagay oo da'dooda aanay arag. Assalaamu calaykum Soomaaliya waani salaamay idil ahaantiinba meel walba joogtaan maanta waxaan halkan u soo fariistay inaan ka hadlo video shalay ay soo duubtay Ruweydii Yuusuf iyo hooyada dhashay oo magaceeda ku sheegtay Mariin Shuurow Ruweyd shalay videoga waxay ku soo qaadatay hal soo caawiyo aabahay wuu geeriyooday danana haysato shaqo ma haysto shaqo hadaan doonto waxaa lagu dhahay waa ina isaaf garanaa marka ani Ruweyda waan aqaana adeerkay aabay la dhashaa dhalay waa walaashay xalayaan arkay fiidiyoyaasheeda markaan arkay aaba geeriyooda ee leedahay wiligeeda fiidiyo iska soo duubi jirtay wiligeena kama soo hadlin balse maanta waxay ugu dhaliyaa waxay tahay inay inas fiidiyo soo qaatay ee tiraado aabahay wuu dhintay ee halay soo caawiyo iyadoo aabaheed uu nool yahay ee xalay toola aan soo arkay inay tiraado aabahay waa dhintay halay soo caawiyo tan kale tan maamada ee tiraado Mariin Shuurow waa la dhahaa Mariin Shuurow lama dhaha maamada Sacdi Nuur Ibraahin la dhahaa gabadhana aabaheed uu nool yahay waa ka inta fadhiya way la jooga maanta xalay arintan galay oo markaan arkaan ka xanaaqay Yuusuf Yabarow uma baahno taakuleen uma baahno tuugsi wuu ka dhan yahay ilmihiisa dal iyo dibad jiraan qaraabadiisa joogto uma baahno waa dhargan yahay wuxuuna ka dhashtay cid aanan baahnayn meel aanan la soo dhigin u baahnayn gabartaas walaashay ama eedadeedna mar aan ahana wixii ku qaaday horta iyada baahida heesa xageeda ma sheegi karno annaka qof noo dhaqan bay ahayd waxaan sheegayaa hooyadeed aniga wax ka sheegi maayo laakiin dhaqanka ee wadato hooyadeed baa ku wado waxaana keeni kara labada qofood hadeeni isqabin amba ay isla joogin xanaana la'aantana habarta xageeda ka timiday ilmaha yar yar oo qaaban fiidiyowga soo qabtay gabartii dhashay waxay jirtaa Turkiga uma baahno tuugsi ma rabin wax ma rabin gabartaas waxay u geysay fasahaad waxaan ka rabaa walaalkay wiilkay ka duubay oo shalay ay keensatay inuu galiilkaas oo ka baxsho oo meelaha oo dhiga ka baxsho dadka walaalaha ay qaadanayaan fiidiyowgaas wareejiyayaan waxaan ka rabnaa inay naga dhaafaan ay ka saaraan dhaqanka Soomaalida waa wada noolaasho iyo arrimo ku saabsan ilaali oo afmeer caadada iyo hab dhaqanka bulsho oo Soomaaliyeed dhinaca kale warbaahinta waddankaasi Finland ee qaaradda Yurub ayaa hadal haysa gabadh Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Faadumo Cali oo u dhalay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe Faadumo Cali ayaa ahayd kalkaalisada Soomaaliyeed ee 2 sano gudahood ku noqotay milyaneerad taasoo warbaahinta waddankaasi Finland ay saacadihii u dambeeyay aad u qaada dhigaysay haddaba Faadumo Cali oo uu dhalay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe sidee ayay ku heshay lacagtan 2 milyan taasoo baraha bulshada Soomaalida iyo guud ahaanba taqaarada Yurub saacadihii u dambeeyay aad loo falaqeynayay iyadoo warbaahinta waaweyn ee caalamkuna ay ka hadleen sida gabadhan aadka u da'da yar ee qaxootimada ku gashay waddankaasi Finland ay dhaqaalaha intaasi leeg ku heshay taasoo dad badan la yaab ku noqotay haddaba xagee ayay ka keentay barnaamijkan ayaynu kaga bogan doonaa Faadumo Cali waa mulkiilaha shirkadda Hayawa oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka balse 2 sano ka hor waxay ahayd kalkaaliso ka shaqeysa cisbitaal hadal haynta ku saabsan gabadhan ayaa warbaahinta qabsatay kadib markii
ay ku guuleysatay abaalmarinta sanadka ee shakhsiyaadka ganacsiga iskood u abuuray ee wadankaasi Finland ee qaaradda Yurub. Guddiga abaalmarinta bixiya ayaa sheegay in ay Faadumo ku doorteen maadaama ay shirkadeeda Hayawa ay shaqaaleysiisay tiradii ugu badnayd ee dadka qaxootinimada ku soo galay wadanka Finland oo ah kuwa caqabadaha ugu adag kala kulma helista shaqada. Sababta labaad ee lagu doortay Faadumo Faysal Cali Waraabe waxay ahayd in shirkadeedu ay shaqaalaha siiso mushahar ka badan midka caadiga iyo inay xuquuq badan ku helaan goobta shaqada. Aqoonsiga biladda la igu siiyay bay tiri Faadumo wuxuu muujinayaa in caruurta qaxootiga ah ay awoodi karaan inay guulo ka gaaraan Finland gudaheeda, dadka kalena fursado u abuuri karaan, ayay tiri khudbad ay ka jeedisay xafladda lagu guddoonsiiyey abaalmarinta Faadumo Faysal Cali Waraabe. Muddo 2 sano oo ay jirtay shirkadeeda waxay samaysay dhaqaale malaayiin dollar ah, si xawli ahna ku korayay ayuu u sii socdaa shirkadeedu. Haddaba maxay ahayd tallaabadii ay qaaday Faadumo Faysal Cali Waraabe oo u dhalay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe? Waraysi ay Faadumo siisay warbaahinta wadankaasi Finland ee lagu magacaabo Suomen Yrittäjät ayay ku sheegtay in markii ay bilaabaysay aasaaska shirkadeeda ganacsiga ay go'aansatay inay ka tagto shaqadeeda kalkaalisanimo, dadkuna ay aad ula yaabayeen iyagoo u maleynayay inay tahay qof waalan oo aan miyir lahayn. Hadda waxa u suurta gashay inay koboc degdeg ah ay samayso, shaqaalaheedana waxaa ka mid ah dadka soo galootiga ah ee u baahan garab istaaga qabashada aadka. Shirkadda Hayawa oo la abuuray sanadii 2020 waxay 2 sano kadib soo xareysay lacag malaayiin euro oo ah lacagta wadankaasi Finland. Hayawa shaqadeedu waa hanaan ganacsi oo ay kalkaaliyayaal ugu diraan xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada shaqaalaha caafimaadka raadinaya, sidaasna waxay ugu fududeysay helista xirfadlayaal la hubo. Ilaa 10 qof ayaa ka shaqeeya xafiiska liiska shaqadana waxaa ugu jira in ka badan 2500 oo xirfadlayaal caafimaad ah oo tababaran, dowladana ka diiwaan gashan. Faadumo markii hore qaxootinimo ku tagtay dalka Finland ayaa hadda hogaamisa mid ka mid ah ilaha shaqo abuurka sameeya ee dalkaasi Finland. Khudbad ay maalintii Talaadada ahayd ka jeedisay munaasabadda lagu guddoonsiinayay abaalmarinta ayay waxay ku tiri Faadumo, waxaan abaal weyn u hayaa Finland oo ah wadanka aan imi 32 sannadood ka hor anigoo gabadh yara. Dalkan wuxuu i siiyay fursado cajiib ah, intii karaankayga ahna waan ka faa'iideystay fursadahaasi, ayay tiri Faadumo Faysal Cali Waraabe oo uu dhalay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ee Somaliland Injineer Faysal Cali Waraabe.